عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قالك أهي كوحدان برتينا فيسبوك بقرك استيلك يسوع كله منصر حسين وحن إذن لنا هاي سودو وذا صاحبيال فضلا بيتكنا فلو قرية وحن هنا ما تبمو قالكن أو كشكين يكبرنا استيلك عاي حبس قوين أبحاسك هوري رشك بي أو ننكلا يدي ننكلا هاو نحمري xiriir qarsoodi kaasi oo isagu ku soo bandhigay bartiisa TikTok maxaa ka jira inay uur leedahay xamso weyn arintan ayaan kaga hadli doonaa maanta barnaamijkeena balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad videoga like saarto soo kalena u share gareyso saaxiibadina kale ku xiriir barta Facebook maasanid haddaba xamso weyn oo ah gabadh aad uga yaqaan barta TikTok iyo sidoo kale YouTube ayaa la sheegay inay ninkeedii markii ay kala tageen han ogeyn inay muddo dhaxanaan iskuursadeen misana kala tageen ayuu xiriir qarsoodi dhexmaray wiil TikToker kaasi oo ka soo jeeday dhinacaas iyo qaaradda Yurub ambaba hadda ku nool qaaradda Yurub waxa la sheegay inay yeelatay uur taasi oo sidoo kale nahay dadka qaar sheegeen inay ilmo u dhasheen kaasi oo la ogeyn ilaa iyo iminka xaqiiqada laga hayn arintan ayaan idin la wadaagayaa balse cidda wax ka haysa waxaan ka codsanayaa inay commentiga noogu soo qoraan sidoo kalena page-kan ay follow gareeyaan si aan u ogaano xaqiiqada dhabta ah iyo waxa jira queen xabsa oo ahayd xaaska hore rashka bay 70 dambana iska ahayd qof single mother ambaba garoob loo yaqaano ayaa la arkay iyadoo oo soo bandhigaysa wax uu ilmo yar oo haysto taasi oo qoom badan loo lahayn inuu ilmo ahaayeen wax kala ahaamida balse wiil TikToker ah oo caan ah kaasi oo ka soo jeeda dhinaca qaaradda Yurub hanan jeclaysan inaan magaciisa halkan idinku la wadaagno soo wajira awad ayaa ku soo bandhigay bartiisa TikTok isaga iyada oo wado farkayaaraya bisana muuqaal isla duubaya taas oo si weyn hay dadku u hadalhayaan balse dadka qaar aan la xiriirin ay noo sheegay inay xataa uur isku qaadeen bisana ay ilmo u dhashay oo xataa qaar ilmo sheegayaan inta ay qaarka kalena aysan sheegin wax ilmo ah balse ay sheegeen oo kaliya inay xiriir dhexmaray labada qof queen xafsa oo mar la weydiiyay su'aasha ah waxaad leedahay nin kale oo hadda aad qasqabtaan waa ay ka gaabsatay hadalkan balse wiilka ayaa si leef bartiisa TikTok u soo bandhigay isagoo oo moodo inuu TikTok-giisa si weyn u kala kaxsanayo balse arintan ayaan idin la wadaagaynaa saaxiibayaal xaqiiqada dhabta ah waxaan soo baari doonaa maalmaha foodo inagu soo haya khaasatan maalmaha bari iyo sahan dambe mid kamid ah ayaan idin soo bandhigi doonaa balse waxaan idin la wadaagnay inay arintani wax un ka jiraan haday ugu yar tahay oo xiriirkoodu yahay mid qarsoodi ah ama lub sheega وهالكي عبدي نكي لو رنجري waxa weeyaan xamsa iyo ninkeeda waxa dhexmaray waa xiriir ambaba ha ahaato mid gool dhaafa ambaba ha ahaato mid xalaal oo isku qabaan si sax ah balse arintan cidii wax ka og ambaba ka shakisan ay iyaguna dareenkan oo kala qabay hayna la soo wadaagan commentiga xaqiiqada dhabta ah waxaan idin soo bandhigi doonaa maalmaha fooda inagu soo haya sida bariya sahan tama mid kamid ah mahadsanid saaxiib muuqaalka leegare